gudoomiyaha degmada Beledweyne ayaa amray hay'adaha samafalka ee ka howlgala magaalada Beledweyne ee xarunta ganacsiga Hirshabelle in ay gutaan waajibaadka loo igmaday ee samata bixinta dadka dhibaataysan waxaana uu hadal kulul kula hadlay madaxda hay'adaha oo uu sheegay inayan u gudan sidii ay mudnayd hawshooda. Maryan Maxamed Cali ayaa warkan Beledweyne ka soo dirtay. Gudoomiyaha degmada Beledweyne ayaa amaro culus ku soo rogay hay'adaha ka howlgala gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wuxuuna ka dalbaday in si rasmi ah ugu adeegaan qoysaska barakacyaasha ee ku sugan magaalada Beledweyne. Gudoomiyaha degmada ayaa hadalkan u xujiyay xilli isaga iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Sheekh Xuseen ay booqdeen xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala magaalada Beledweyne. marka dadka islaamka oo masaakiinta oo tabarta ay waxa loo qabtay ayaa waxay u yimaadeen waa masaakiintaas hadii masaakiintu wax qabo waysiin cid wax qabanaysiin ma la iska celinayna insha Allah biidna kariim maadiin hay'adaha meeshan ay maxaa ahay kaamkan gaalkacay hay maadiin biyay u baahan yihiin dadka aad u dayacay waxa way dhul kore waa ku yirihay dadka iyo dhulkii isma leh meesha ay ku dagay wax meesha jooga u jeedi waxa ilmaha yaryarka oo soo baxay dadkii macaanaay oo hadda soo baxay wax qabta la rabay waa kuwan waxana waa u baahan marka waxaad haysiin in dadka u ba'aan lama rabo waxa kale oo idin sheegay anaga kaamkan wareegnaa meesha oo maaragtay dayac iska jira waa tagnaa marka anaga baahida meesha ka jirta anaga hay'adaha waxaan u sheegaynaa inayna soo maraan waxa way meel mar wax la sii oo mar labaad wax la sii oo mar saddexaad wax la sii in lagu celiyo lama rabo waa inaan anaga kaamamka baahida hays anaga hay'adaha waxa leenahay soo maraan haday soo mari waayaan wallahi oo billahi oo tallahi waa dacweynaynaa waxaanu ku filan hal warqadoon ka diraa ku filan marka waana haddana digmaayo waa digmaayadii ugu si emergency ah wax ugu qabtaan taas insha Allah waa faraynaa hadee taan ilmaha dugsi qura waa u baahan yihiin dadkii waxbarashada dadkii gaaray waa kan iskool u baahan yihiin waxaan xoog saari doonaa in iskoolna la helo dugsi quraan la helo xoog saari doonaa waxyaabaha kale oo baahida kale in la helo xoog saari doonaa insha Allah maamulka dugsigu noqon doona jileelada anaga markii jawaab degdeg anaga keeni doon social media SBC iyo idaacada wadaniga aad iyo aad uga mahadcelinayna runtii oo maanta nagala qayb qaadanaya barnaamijka adeega bulshada oo yaani hadda aan socono aad iyo aad yaani insha Allah insha Allah iska sabra insha Allah waxba la heli doona hadii ilaahay raado maamulka degmada waxaan ku bogaadinayaa dadaalka iyo dardargelinta ay wadaan iyo howlaha ay wadaan marka degmada waxaan leeyahay degma shaqadiina qabsadaan leh hadalka mas'uuliyiintan ayaa ku soo beegmaysa xilli cabasho xooggan ay ka imaanayso qoysaska ku jira xerooyinka ku yaala magaalada Beledweyne oo ka cabanaya xaalado nolol xumo oo aad u daran. Maryam Maxamed Cali, warbaahinta SBS TV Beledweyne.